السلام عليكم. كيباتاي هجامية مثل هجامية هجامينتو واكو قنعنتا قف أرين نوعو دونها أهاده إن أدود إناد قف كدي رجلسو إن wax wanaagsan sameeya hogaamintu shaqo kuma lahan jagada aad hayso aqoonta aad leedahay howlaha lagu dhiibay hogaamintu ma ahan inaad dhowr shaqaale ugu sarreyso ama amarkaada la maqlo ma tihid hogaamiye haddii aad hayso jaga xukuumadeeda kugu soo aaday markii si qabiil jagooyinka dawlad loo qaybsado xilliyada qaar adigoo dhagaysanaya hogaamiye siyaasadeed gaar ahaan kuwa Soomaalida ma isweydiisaa qofkan weligiis ma uusan tegin miya meel looga hadlay mabaadi'da guud ee hogaaminta mas'uul laga raba inuu wax hogaamiyo haddii uu yahay baarlamaan ama wasiir laakiin qaab ciyaal u dhaqmaayo qofkaas mas'uulka jagadaas kumuusan helin in uu leeyahay awood hogaamin ikhlaas iyo howlqabad kaliya wuxuu ku imaaday falsafada reer hebel afar wasiir reer hebelna afar wasiir waana wadda mugdiya oo aan weligeed horumar lagu gaaraynin kuna dhaqmaysa waxa lagu magacaabo biyoqraadiyadda aboorku cunay oo ah in aad maamulidda u malaynayso iscaburin isla weynin dadka oo aadan la hadlin kelmado carano kooban aad ku hadasho dhaqankaaduna sidaas yahay nidaamka rootiiniga ee laga soo gudbay haddii aad sidaas tahay ma tihid hogaamiye waxaad tahay shaqaale caadi ah haddaba su'aasha ma waxaad tahay hogaamiye mise la hogaamiye si aad arrinkaas u ogaato su'aalahan ka jawaab si adiga xafiiskaada shaarba waaweyn tahay sigaarkana kuu shidan yahay adigoo isla waxaad tahay qof muhiim ah wejigana caburinayso adigoo sheeganaya inaad tahay hogaamiye waxaad khiyaanaysaa naftaada cid kale ka hor haddii aad addoon u tahay duruufaha kugu hareeraysan oo aad isleedahay waxba ma qaban kartid ama niyadda uma dhisi kartid cid kale haddaba ma tihid hogaamiye haddii aad rabtid ahow mas'uulka ugu sarreeyo hogaamiyaha dhabta waa kan waddooyinka u jeex cidda uu hogaaminayo noocay doonto ahaata ciddaas ee aanan qaadin wadda dad kala jeexeen qodobka shanaad go'aan qaadashada waxaa jira mabda' rabbaani ah go'aan qaadashada ah in aad labalabaynin oo ah fa idaa cazamta fatawakkal cala allah haddii aad arrin go'aansata ku dhaqaaq ilaahayna tala saaro niyaddaadana ka saar in go'aankaas yahay mid xun go'aan qaadashada waa waxa lagu yaqaana dadka hogaaminta leh go'aan qaadashadu waa geesinimo iyo hogaaminnimo qof aanan go'aan lahayn ama aanan qaadan karin haba yaraatee cid ma hogaamin karo